Bismillaahi Raxmaani Raxiim waa mar kale iyo barnaamijkeena oo waqtigan kale uga barteen idaacadeena Dadaab ee xeryaha qaxootiga gaar ahaan xerada Ifo waqti kastana aan ku wareysano dadka magaca ku leh bulshada gaar ahaan xerada Ifo maanta waxaa marti halkan igu ah walaal xaajiyow oo asaga qof dadka dhexdooda bulshada ku leh magac marka hore asaga ayaan studio kusoo dhaweynayaa soo dhawow maasha Allah sida hore ugu sheegtay baa walaalkayga shaka ama shakata maasha Allah waad mahadsantahay sida quruxda badan aad soo dhisay waan kaga mahadcelinayaa waxaan ku leeyahay adigana soo kala soo dhawow waad mahadsantahay sida quruxda badan aad nooga aqbashay codsigeena ku aadan inaad maanta studio nogula soo midowdo halkan su'aalo dhowr ayaan jeclaan lahaa inaan maanta ku weydiiyo marka hore magacaada saxda ah nala wadaag iyo magaca afgarashada ee dadka ku yaqaana ama ninaasta maasha Allah walaalkayga magacayga rasmiga ama magacayga saddexan waxaa la yiraahdaa Afow Ibraahim Xasan magaca oo bulshada dhexdeeda ay la yaqaan waa walaal xaajiyow ama xaajiyow waa tahay walaal xaajiyow sidaan wada ognahay bulshada waxaad ka dhex noqotay nin aad magac ugu leh waxtarna u leh hadday u soo sukayso in aad tahay qof YouTube leh haddaan ku hormar su'aasha u horeysa YouTube-ka yaa kugu dhaliyay fikirkaas inaad YouTube furato sababaha aad u furatay iyo waqtiga aad furatay bal nala wadaag su'aashaas walaalkay waa mahadsantahay walaal runtii horta aad baan u faraxsanahay ugu horreyn mar labaad mar saddexaad waan kaaga mahadcelinayaa wareysiga aad ila yeelatay maasha Allah ni horta ugu horreyn horta ismaanan lahayn YouTube baad furanaysaa ama waa lagu yaqaanaa bulshada ku arki doontaa muuqaalka baa la daawan doonaa ismaanan lahayn laakiin waxa ii suurtageliyay yani inaan YouTube aan furto ama igu dhiirigeliyay gabar walaashay oo joogto wadanka New Zealand waxay u tiri maartay dad badan waxa jira ay u dhahday maartay YouTuber soo adigana soo kale waxay dhahday maartay YouTuber iska noqo waxaan ku soo dhiibaa markaas kadib qalabkii iyo waxa aad isticmaaleed ay u dhahday yani ana u sheegay waxaan ku dhahay maartay YouTube iyo waxaas meel loo galayo si loo isticmaalayo ma yaqaano marka waxaan ku dhahay soo kale qalab baa loo baahan yahay qalabkiina ma haysto ma awoodo marka waxaan dhahay iga wareeji oo kale markaas ay u dhahday maartay wixii aad u baahan tahay qalab yani ana ku soo gudbinaa wax walbana waan ku soo dhiibay waa kaasoo sida ood baa weeyeen waa tahay waxaad sheegtay in walaasha ka caawisay inaad YouTube ka furato laakiin dadaalka aad laga imaatay waqtiga furatay YouTube-ka YouTube-ka la runtii waxaan furtay 2019 waa tahay waa waqti aad u dheer ilaa iyo hata subscribe fiican waad heshay sidaan jeclahay sidaan wada ognahay waxaan joognaa qaxooti waxaa tahay adigana qof sidaan jeclahay arday amaba wax shaqo aan helin oo baagamundo sidee YouTube-kana waan ognahay inuu u baahan yahay MB aad u fara badan sidee u maareysaa inaad YouTube-ka soo geliso muuqaalo weliba qaadanaya MB aad u fara badan caqabad ma kugu tahay midaas maasha Allah walaalkay waad mahadsantahay walaal wax loo baahan yahay horta in la iska wareysto loo baahan yahay waa mar walba horta hadaa rabto yani inaad maartay wax aad sameyso waxa loo baahay mar walba inaad ku tiirsanaato yani adiga aad is aaminto adigana maartay aad isdhahdo waxaan waa qaban kartaa si kasto adiga maartay xaaladda ay u adagtahay ama si kasto adiga tabartaada u liidato wax walbana waad qaban kartaa hadaa isdhahdo yani adiga naftaadana u sheegto inaad shayga aad qaban karto waad qaban kartaa waana qaban kartaa waxaasna maartay uma maleynayo wax weyn yani laga dhigin karo maanta marmarsi ama wax ma sameyn karo yani waa is just adi waa 50 ama 100 haddaan helo Kenya shilling waa enough is enough waa tahay marka YouTube-ka muuqaalo noocay soo gelisaa dadba wax bay soo geliyaan maadaama ognahay halkan caqabado badan ay ka jiraan oo si haday u soo sukayso in camera laan ay tahay camera aad haysan sidaan ognahay marka muuqaalada maxaad ku duubtaa ama taleefanka gacanta ayaad u isticmaashaa maxaana muuqaal ahaan soo gelisaa muuqaalo noocay walaalkay horta iga raal noqo ana waxaan isticmaalaa yani camera ayaan isticmaalaa soo kale waxaan isticmaalaa maartay voice record iyo wax walba yani wax lagu duubay waayo waxaan hore aan ku yiri hadaa xasuusto gabar walaashay ayaa iga caawisay aan ku yiri wax dhanba ay isoo dhiibtay qalabkii dhanba la isticmaalayay hadii wax lagu duubay ayato ana waxaan YouTube-ka aan soo geliyo waxa way hees ma waxaan soo geliyaa YouTube-ka yani madadaalo ama majaajilo soo saad bisaad u taqaano waa tahay YouTube-ka muddo aad u fara badan ayaa ku jirta ilaa haatan ma isleedahay meeshii aad rabtay waad gaartay oo meel la taaban kara ma gaartay bulshadana dhan ahaanteeda ma isleedahay wax faa'iido leh ayaad u wadaa oo ma aaminsantahay waxaan meel inaad ka gaari karto mise weli waxaad leedahay waad ku caajistay oo waxaad leedahay waxaan wax soconaya ma ahan mise weli way ku macnaatay sheekada oo meel fiican ay ku maraysaa
maasha Allah wallahi horta muddada aan ku jiray YouTube ama aan waxyaalaan aan sameynayay iyo hadda maartay waa isku ma ihi yani marka hore qof la yaqaan ma ahayn hadda oo magaalka oo kale markaan marayo ama laga yaabo ninkoo saaxiibkay ama qofka qaraabada aan nahay inuu weydiiyo idhaho seetahay xaafadda ka waran inuu dhaho laakiin hadda waxaa waaye waa qof la yaqaano yani bulshada dhexdeeda markaan marayo oo kale ninkan waa nin YouTuber yani waa oo lagu faan ayaan ahay waa tahay bal noloshaada kale haddaan wax kaa weydiino arday miyaad tahay ma qof shaqeeya ma qof xaas leh bal haddaad dadka ku dhegeysanaya u faahfaahiso maasha Allah wallahi ana horta maaragtay qof xaas leh miyi yani waa single baan iska ahay sidoo kalena arday baan ahay waa tahay marka laga soo tago inaad YouTube leedahay oo dadka caan ka dhex tahay haddana iskuul dhigato waa caqabad waa arrin dhibkeeda leh waa iskuma keeni kartid sidee waqti ugu heshaa inaad wax duubto haddana iskuul barato walaalkayga waad mahadsantahay wallahi wax haddii la duubayo horta waqtigii maaragtay la gelinayo adii isbuucii maaragtay 7 beri marka laga jaro yani 2 beri oo aan iskuulka aan jirin oo kale ayaa waxa soo sameeyaa kadibna maaragtay habeenkii oo kale ee dhigta gareeyaa then adii 2 beri ama kadibna waa YouTube kan soo geliyaa waa tahay ma jira qof kaa caawiyo dhanka duubista haday noqoto ma jiraan koox inaad samaysatay oo muuqaalad aad la soo samaysaan mise keligaa unbaad kaamirada hor fariisato oo cidna caawinaad iyo garab uma baahnid maasha Allah walaalkayga waad mahadsantahay wallahi horta waxaan halkan maaragtay aan ka salaamayaa kooxdayda mar walba koox ayaan leeyahay oo yani ila duubto sidoo kale waxa camera ii haya oo maaragtay editini ah cameraman ii ah walaalkayga mar walaalkay waa marna waa saaxiibkayga Ali Yare ama Showman waa tahay YouTube-ka waxaa jira waxyaabo aad u fara badan dad idinka horumarsan oo waxyaabo hadda aad soo gelinaysaan ka qurux badan oo soo dhigo idinka ahaantii misleedihiin dhankaas challenge ayaad kala kulmaysaan oo weli waxaa sii jeclaan lahayd inaad heshaan meel fiican oo wax ku duubtaan mararka qaar ma ku fikirtaa arrimahaas maasha Allah waa loo baahan yahay horta waxa markaas u duwayso yani hadba waxaa fiiriyaan dadka ama comment hadda noo soo qoro hadba waxay fiiriyaan yani quality ama qaabka anaga wax aan u sameynayno sheygan gestures ama qaabka nooca anaga aan wax u sameynayno ayay fiiriyaan laakiin inta badan ma fiiriyaan yani quruxda ayadoo loo baahan yahay shay inuu quruxsanaado laakiin oo meeshii aad ku duwayso inay quruxsanaato laakiin sidoo kale waxa ka sii muhiimsan yani qaabka adiga wax u duwayso yani haddii wixii adiga aad sameynayso yani afka un aad ka sheegayso action aan la jirin ama ficil aadan sameynin yani taa waxaa ka dhigan tahay in aadan weliba haddii meel qurux aad la joogto naftarkeeda maaragtay waxay u baahan tahay ficil inaad ku darto ama aad sameyso yani ficil oo dadkaan is dhihi karaan runtii waa wax baaba matalayaan waa runne is dhihi karaan dadka daawanayaan waa tahay dad koox ayaa samaysatay oo waqti ayaa gelisay koox ayaa raadisay marka kooxda qaab noocee ayaa usoo xushay ma iska soo wad saaxiibtinimo yaa usoo xushay ma si talent ahaan yaa u fiirisay dhankaas ayaa ka fiirisay mise dad ayaga hubigooda ay kusoo raadsaday ayay noqdeen marka kooxda aad asaastay mise ay ka kooban yihiin waa koox isku xiranaa yaa madax u ah okay maasha Allah kooxdan horta dadna maaragtay anama soo raadinin yani waxaa weeyaan horta marka wax sameynayso haddaan aan adigoo kale hadda aan ku imaado maanta aan ku dhaho niyo waxaan ila samaysaan ila yeel aan ku dhaho kale waxaa laga yaabaa inaad maaragtay si kale aad ii fahanto laakiin markaan ii arkay yani wax aan sameynayo iyo dadaalkii ayaa waxay ii imaadeen niman saaxiibyaalkii yani xaafadda aan isla joogno waxay yidhahdeen niyo annagana inaan shaashada ama YouTube-ka aan ka muuqno ayaan rabnaa koox aan noqono waxay yidhahdeen maaragtay wax aan kula sameyno kadibna waan ka aqbalay codsigooda waxaan noqonay marka teamkaasna maaragtay waa team maaragtay la yaqaan waxa kamid nin la yiraahdo Fashion Boy ama Abdullahi sidoo kale nin la yiraahdo Abuwan Abdirazaaq sidoo kale waxa kamid maaragtay Ceelow oo mar walba maaragtay aad maaragtay u jecel inuu maaragtay wax ila sameeyo sidoo kale nin walaalkay ayaa kamid ugaas la yiraahdo waa kasoo de waa iska faraha badan waa tahay waxaa tahay arday haddana waxaad leedahay YouTube dhanka kubadda cagta oo kale ma dheeshaa oo ma tahay ciyaaryahan kubadda cagta aad u xiiseeyo haa niyo waan dhilaa weliba waxaan ka dhilaa positionka number 8 ayaan ka dhilaa
ma jirtaa in marka YouTube iyo school iyo inaad isku keeni weyso sometimes kubadda cagta aad ka gaabsatay maalmaha u dambeeyay ma dhacdaa mararka qaar inay challenge kugu noqoto? haa waa jirtaa hadda maalmahan u dambeeyay oo kale runtii wallaahi asxaabta waan ka haray oo yacni banoonta waayo waxaan u batay iskuulkii iyo youtube-ka xaggiis ayaan u batay oo sidoo kale tiimkii aan la hagaajina ama muuqaal haddii la hagaajinayo ay noqoto waxyaalahaas ayaan ku yara mashquulay laakiin haddaan ka gaarno dee kabahii iyo banoontii wixii waa yaalaan dee waan iska maaragtay waxisan. Sax. Sidoo kale waxaa jirto inaad shaqo kale oo labadaa ka baxsan ma jirtaa iskuulka marka laga soo tago arday inaad tahay inaad YouTube leedahay ciyaartooy inaad tahay ma jiraan shaqo kale oo taa intaa sii dheer oo adiga qabato oo maasha allah haa waan qabtaa shaqo badan baan qabtaa niyo horta wallaahi runtii laakiin shaqo inkastoo hadda maaragtay shaqo oo aan ahayn had iyo jeer liga baahnayn aan ahayn waxaan maaragtay la shaqaystaa shirkad oo laga yaqaano aan ka ah adduunka oo laga yaqaano adduunka kale oo maaragtay dadka ay ku nool yihiin la yiraahdo tennis ayaan la shaqaystaa shirkadaas maaragtay lagama baahna yacni waqti had iyo jeer inaan joogo keliya un waxa laga rabaa markaan maaragtay lii baahdo ama maaragtay arrimo kale ay jiraan un inaan xafiiska aan tago inta kalena maaragtay shaqooyinkayga kale aan iska wato. Okay, waxaan kusii dhawaanaynaa barnaamijka gabagabadiisa adigoo qabto shaqo kala duwan YouTube leh mis leedahay weli wax ayaa kuu dhiman oo nolosha ka dhiman maadaama aad wax walba isku haysato YouTube-kaada iyo bulshadaada haysato mise weli dadaalkii un waa sii wadaysaa oo haa wax badan iga dhiman waxaan leeyahay asxaabta meel kastoo ay joogtaan waan salaamaya ugu horreyn khaasatan dadka ay ku hadlo afka Soomaaliga waan jecelahay waxa iga dhiman maaragtay waxa weeyaan mar walba taageeradiin iyo garab istaagiin ayaa iga dhiman ayaan dhihi karo aan dhirgiinaba had iyo jeer. Waata YouTube-ka kale ma jiraan dad si gooni ama qaas ee kugu xiran markii YouTube la bilaabayo kale amaba YouTube markii la bilaabayo qof kasta qiso ayaa ku dhacda ama waxyaabo waxa markaa ku cusub tahay waxyaabo ay iska la kulmaysaa oo qosol leh ma jirtaa qiso adiga kugu dhacda ahaantada marka YouTube furnaysay aad la kulantay oo ka qoslisay? haa wallaahi horta waa jirtaa wax kasta marka la bilaabayo saa sheegtay runtii waxay leeyihiin caqabad ama challenge أنا واحد بدنا نقول مي لكن ما عرفت ما يقدر لهذا مركي ورئيس هذا ما هنا لكن لحظة عن يمرس يوتيوب كمركز يعني بلاوي هاد وحان سميها فضل يعني دتك ما يقانين إن أنا واحد سمينا يو مؤجين لكن مركز دم يعني أركضونان حيركن مقال عن سوق لني يعني يوتيوب أو رواية أنا عن أترجمني يعني توجنمو أنا عن مارت سميني رواية توجنمو مركز سميني هي ma ogeyn yani xaafada maamooyinka inay arkeen uma maleyneen anoo iska soo maartay xaafadii maamo iyo niman kale igu dhigeen waxa la isdhahay maartay tuug baatiin waan aragnay lacagta inaga hadeen hadda kadibna maartay meelahan inuu maraysan hadii in arko wixii la iga haday xitaa adaan ku imaan oo kale lagu dhaado yani riwaayada ay si qaldan u fahmeen daacad waxay u qaateen si dhab ah yani waxay u fahmeen aniga waxa aan ku heshiin ay ahayn waxa aan iska hadaynay marka ay waxay u fahmeen qaabka anaga waxa oo hadayna ayaa maartay waxay ahayd qaab maartay aad u cajiib badan oo laga dareemaynin qofka in waxa laga haday laga dareemaynin ayaa ahayd safar sama ayaan u sameynay marka waxay u maleynayeen maamooyinka in anaga maartay dhab anaga wax u hadaynaba oo anaga markaas nala duubaayay yani oo nala duubaay in anaga wax hadayn dad kale na duubaayaan ayaa u fahmeen ayaga صح بنادم سفان ما سيدا واقتاي هذا النوع قبل أيام كسر دواننا تاجرها كل جسنا مدتك كوجو حرام بل فرنتو قدام بس أو درسوا يو مجا أدور عيني سيد يوتيوب مجا كقرن سي حلقة كلا سعودان ما شاء الله ولا كمان نصنتاي مجا هيك يوتيوب كي قرن حلي هذا ولا الحجيو ولا هذه مركات كرتو سبيس لا حجيو دبل أيواي sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan taageerayaasha ama dadka YouTube ku xiran nin maartay waxa jiraan iyo jeer hab yaraatay wallahi waxa jirta maartay inta badan YouTube ka comment ka soo bixiyo oo had jeerna ku xiran sida gabadha hadda maartay waxa kamid ah gabadha hadda aan sheegayo oo qalabka iyo iwaacusay oo walaashayda New Zealand joogto iyo nin la yiraahdo Xasan Ifka asagana xaafada oo iga dheereen degan sidoo kale halkan waxaan ka salaamayaa adiga ayaan sidoo kale aan ku salaamayaa iyo dhammaan intii dhageysanayso muuqay magaca taqaan
Okay, su'aasha u dambeysa YouTube-ka waa aalad daran loo isticmaalo, aad loo isticmaala. Ma jiraa qof si gooni ah ama si gaar ah aad u taageerto oo aad ku daysato oo aad jeceshahay muuqaaladiisa oo asagoo kale inaad barateen iska dhigto sometimes? Ma jiraa qof noocaas oo kale ah YouTube leh? haa waa jiraan waxaa jira ana horta waxa aan sameynaya waxaa weeyaan waa hees ma aha hees ma soo qaado laakiin waxaan sameynaya waxaa weeyaan waa sheekooyin iyo majaajilo ama riwaayad waxaa dadka riwaayad ana marka waxaan ku daydaa dadka riwaayadaha sameynayaan kuma daynayo yani dadka heesaha sameynayaan waayo ana riwaayadan jilaa dadka kale riwaayadooyinka baan daawada iyo si aan maaragtay wax aan kula baxo ama fikir ama ha ahaato yani xigmad ama qaabka ay wax u sameynayaan waxaa weeyaan dadkaas waxaa kamid ah Sooraan iyo Jawaan nimanka la yiraahdo oo Soomaalida aad u taqaano sidoo kale waxaa kamid ah maaragtay nin la yiraahdo asagana Asad Hajiyo isku magaca wadanaa adin dad badan jirniyo soo koob kara. Okay, waa tahay walaal Hajiyo magaca halku kaaga yimid yaa fikirkaas ku siiyay mise adiga unba u fikiray oo magaca baxsaday? Sidii hore aan kugu sheegay horta ana waxaan dhiilayay markii hore Banooni ayaan iska dhiilayay yani banoonta ayaa aad ugu wanaagsanaa nambarka 8 waan ka dhili jiray yani waa xajka ma u tagay banoonta amal lagu yirno ninkan xajku inuu tagaa malaysab xajiga oo xajiga banoonta amal Sax. ayaa lagu yiri marka xajiga banoonta marka la marka xajiyo meesha ka soo baxdo waa xajiga banoonkiisa la xajiyo iska noqoto marka dambe waan iska jeclaaday saxabta banoonta ila dheeleyso ama isku tiimkana ay bixisay. Okay, waa tahay kaasina wuxuu ahaa walaal Hajiyo oo wareysi aad u qurux badan halkan nagu siinay idaacadda Manta Studio nagu soo booqday waqtiga oo nahay dartiis aad baan wax u nahay wareysiga uu go laakiin wareysi kale oo kan la mid ah inta ku kulmeen waxaan kaga tageynaa salaamu alaykum dhamaantiin aad baan u mahadsantihiin.